Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa anigoo ah Aamina Cabdulqaadir. Janalka aan kala hadlayna waa Noqo Hooyo Buuxdo. Waan idin salaamayaa dhammaan ahlu sharafka igu xiran. Waan idin caafimaad qabaa. Idinkana waxaan idin rajeynayaa inaad i caafimaad qabtaan. Waa maalin cusub, video cusub iyo mowduuceeni aan ku guda jirnay ee ahaa sidee ku noqon karaa hooyo buuxdo. Qaybtiisii labaad ayaan maanta ka hadlaynaa. Inta aanan videoga hore u gelin walaal janalka subscribe noo saara. Laagta waa inoo muhiim, comment qurux badanna kasoo dhiibta waa inoo dhiirigelin. Haddii aan hore usii galno mowduuceena maanta waxaan kaga hadlaynaa qaybtii labaad sidee ku noqon karaa hooyo buuxdo. Noqo hooyo adag oo ka bixi karta xaaladda ay maanta ku sugan tahay dunida. Hooyo waxaa ogaataa qofka mu'minka ah ee awoodda leh ee waxtarka badan inuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah. Taasna waxaa noo sheegay rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam. Almu'minu alqawiyu khayru wa axabu ila Allahi min almu'min adaciif. Qofka mu'minka ee awoodda iyo waxtarka leh wuxuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah. Mu'min kastana wuu khayr badan yahay. Hooyada rabta inay ku guuleysato nolosheeda waa inay laba shay aysan ka mashquulin horumarkeeda. Midda koowaad, haddaad tahay hooyo Ilaahay wax siiyey, yaysan ku kadin maalka iyo nolosha habbiga ah ee uu Ilaahay kuu doortay. Kaga faa'iideyso wax adiga wax kuu tarayo adduun iyo aakhiraba. Yaysan noqon noloshaas mid adiga kaa faa'iideysato. Yaysan ku gelin kibir iyo daciifnimo. Yaysan kaa lumin waqtigaaga. Midda labaad waxa ay tahay haddaad tahay hooyo danyar ah oo wax yar, yaysan kaa faa'iideysan xaaladda adag. Noqo hooyo adag oo ka bixi karto, kuna qanacsanow wuxuu Alle ku siiyey. Ha walwalin, hana murugoon. Yaysan ku hogaamin naftaada. Mar walba Alle tala saaro oo ku xirnow Alle, asaga ayaa kugu filan. Allah sareeye wuxuu yidhi waman yatawakkal cala Allaahi fahuwa xasbuh. Ninka Ilaahay tala saarto Alle ayaa ku filan. Waxaa kaloo ogaataa nolosha in Allah ma ogiyo cid kale aysan wax ka bedeli karin. Ku kalsoonow Allah, kuna qanac qaybtaada. Dadaal oo ha dayacin fursadahaaga iyo waqtigaaga. Kaga faa'iideyso waxbarasho iyo shaqo. Waxaan hooyo kasta ku boorinayaa in ay waxbarato, khaasatan diinta, waayo waa badbaadada naftaada, ubadkaaga, adduunyadaada iyo aakhiradaada. Hooyada diinta leh waa diamond. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuceena maanta. Inta aan ku kulmi doono mowduuc midkaan oo kale ah, waxaan idinkaga tegayaa khayr. Waxaan Allah ka baryayaa in uu naga dhigo ahlul cilmi, noona wanaajiyo adduunyadeena iyo aakhiradeena.